بسم الله الرحمن الرحيم. habeen wanaagsan dhammaantiin ummadda Soomaaliyeed meel baad joogtaan. caawa ay taariikhdu tahay 3 Abriil oo ku sugannahay State Ontario waddanka Canada magaalada Toronto. waxaan halkan ku soo dhaweynaynaa walaalkeen qaaliga ah Cabdicasiis Iskalaaji Fanaan kamida fanaaniinta ugu waaweyn North America afarteeda koon. waxaan rabaa halkan aan uga sheego shacabweynaha ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan inaan musaddaqa bisha June habeenka Canada Day iyo Somali Day ay tahay ay ugu qaban doonaan walaalkeen xaflad aad u weyn oo ay ka qayb geli doonaan fanaaniinta kale ah isagoo Cabdicasiis walaalkeen fanaankeena weyn Cawaale Aadan iyo anigoo ah Cabdullaahi Boqol iyo fanaaniintii reer Toronto aan halka ka baxday iyo DJ Gogara oo ka imaan doona waddanka Mareykanka iyo also fanaankeena qaaliga ah Axsaab Yare oo isna ka imaanaya waddanka Mareykanka. waxaan leeyahay dhammaan shacabweynaha ummadda Soomaaliyeed oo ku nool Canada iyo nawaaxigeedaba waxaan jeclaan lahaa inaan isku wada aragno soddonka bisha iyo Toronto June 30th kowda Luulyo Canada Day. waxaan jeclaan inaan kusoo dhaweeyo Cabdicasiis isna naga oran doono waxay halkan. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا المرتديس ينتيس بنات لجن عبد الله محمد عبد الله أياد عبد الله بقول رسول الشيخي عبد الله أنا لما هاد جارع أيام الجميع إذن كمان فنانين في لجنة الصومالية أو الله هي فنانين تقرن كأيسوس اللي هو مغالين كان بلوز أونتاريو خاصة مغالين تورنتو وسيلة هاد عبد الله يدي الشيخي عوالي يدي الشيخي دونه بلنتون وصلنا كبيش شو أدريس كي عوال كيسا والناس الدنيا إذا فنانين سوماليين شو حسنا أنا وشعبك وحن ما تقدر يجي نوعلنا وعليهم هم كان سوق مقابلي مقابل سوقي بتشير يوم قال كندا يوم أنت كلا أصحابه هذي يقولون كقيد قاطي ما حد قارة وحاسب مثله تسمع فيلم يسأل عن تسمع ما يصير صورة بالشن إنه وحان ما عرفت خامس كلام أقول ثاني يقول أنا سوي أول ما تسمتي thank you for much. بسم الله الرحمن الرحيم. Cabdicasiis Iskalaaji soo dhawow brother walaalkii Cabdullaahi Boqol waa mahadsan tahay horta walaalkeen Cabdicasiis Iskalaaji waa nin walaalkeen ah oo dalka America nooga imaaday waana ragga ugu waaweyn ee North America fanaaniinta maanta ugu caansan ee lagu faana ah وانا من ملحن وين او صومالي محمد inaan baro uma baahno marka insha Allah taala habeenka bisha June ay soo tahay waxa inoo balan ah annaga oo sidii horeyba loo yaqaanay fanaaniintii sharafta badan leh markii noo yimaadaan saan u soo dhaweyn jirnay inaan walaalkii u soo dhaweyno idinkana aan habeenka meesha soo aragno kulli sida annagu isagoo naga yeelahayna ka yeelno ba annagana naga balan ah aniga walaalkii Cabdullaahi Boqolba waxaan leenahay soo dhawow walaalkeygii adresska iyo waxaas oo dhan Cabdullaahi baa noo joogo oo noo sheegay shaashadana waa la idinku soo qoray insha Allah taala waa habeenka June bisha June ay soddon tahay iyo magaalada Toronto iyo adresska la idin sheegi doono gadaalna Toronto Edmonton ayaa la idin soo sheegi doonaa insha Allah taala adresska walaalkeen soo dhawow annagana sharaf bay noo tahay inaan agtaada istaagno Cabdullaahi baa adresska noo hay insha Allah. marka kale wax rabaa inaan xasuusiyo inaan ku sugannahay right now maqaayada in lagu casuumay waa Nani Cafe Restaurant waxa iska leh walaalaha iyagana maantay marka jooga waa meeshayna hadda ku sugannahay aan adresska showga lagu dhigi doonaana waa maxkamadda Fiji iyo Western ku taala dhinaceeda midigta ah waxay leedahay parking aad u weyn. I hope I see all of you. darata mansiyo eesadur xulan tabubta abwaana kala daran intay ku dadeen raxmayduma koorayslaad dhaqaaq barato waxaa tahay dhool dhammaystirane waxaa tahay dhool dhammaystirane niyadda adiga macaan halkeeda sidaadaho naftani adigay hubaa دمعاي كوكو نور ستا والله يهدوا وهو هذا
geedka ilaa caroobka hobaanta geedka ilaa iska hoyga gabar hagaagsan yaartanu hayste aysiin baarta soodkan si xunay u yeere inta soo bihaaye aan soo socdaa aysiin baarta soodkan si xunay u yeere inta soo bihaaye aan soo socdaaye saantaada soo qaad ee sadriga isoo saar saantaada soo qaad macaan sadriga isoo saar saale rabaaye aniga saale rabaa saantaada soo qaad ee sadriga isoo saar